fadhigii 63aad ee shirka golaha wasiirada Somaliland oo uu shir gudoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuna qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka ayaa waxa maanta golahu ku ansixiyay xeerka maalgashiga Jamhuuriyadda Somaliland oo ay soo diyaariyeen wasaaradda maalgashiga iyo xafiiska garyaqaanka guud xeerkaasi oo uu hore golahu dood uga yeeshay sidoo kale xubno ka tirsan wasiirada Somaliland ayaa golaha iyaguna warbixino kala duwan ka siiyay xaaladda dalka waxaana kamid ahaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo golaha uga warbixiyay xaaladda amni iyo nabadgelyo ee dalka gabagabadii shirka iyo arrimihii lagaga hadlayba waxa ka warbixiyay afhayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac waxaana kamid ahaa hadaladiisii ugu horeyn waxa golaha warbixin guud ka siiyay xaaladda amniga iyo nabadgelyada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa faahfaahin golaha ka siiyay siyaasadda hantida raagta oo ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta maaliyaddu siyaasaddan oo lagu dabaqi doono si loo ogaado loo qiimeeyo loona diiwaan geliyo si midaysan hantida dawladda dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha hor keenay wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyay xeerka wadamarista isagoo wasiirku sharaxaad ka bixiyay kaabista iyo wax ka beddelka lagu sameeyay xeerkaas ugu dambeyn waxa golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerka maalgashiga Jamhuuriyadda Somaliland kaas oo muddooyinkii u dambeeyay yaalay golaha